dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa olol nadaafadeed ka bilowday degmada Maxamuud Heebe ee magaalada Hargeysa. Ololaha nadaafadeed ayaa waxa ka qayb qaadanaya shaqaalaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda ee caasimadda Hargeysa oo hogaaminayo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda Qadar Yuusuf Cali. Waxaana ay saaka hirti waa bariga ay ka bilaabeen ololaha nadaafadeed afaafka hore ee biriijka weyn ee caasimadda Hargeysa ayaa ahaa mid laga gaashaamanayo xilli roobaadka isla markaasina kor loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda wadooyinka caasimadda Hargeysa. Waxaana shaqaalahaasi ururinta qashinka ka caawinayay qalabka iskarogooyinka iyo cagafyada kala duwan ee leedahay dowladda hoose caasimadda Hargeysa. Waxaana kormeer ku soo maray duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko ee weheliyaan xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka. Waxaana warbixin ka siiyay sida uu socdo ololaha nadaafadeed ee ka bilowday caasimadda Hargeysa gaar ahaan degmada Maxamuud Heebe. Qadar Yuusuf Cali agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda caasimadda Hargeysa. runtii ololahan maayirka caasimadda ku baaqay qorshihiisuna wuxuu yahay kow maadaama waqti roobaadkii uu dhow yahay in guud ahaan la nadiifiyo caasimadda oo si looga hortago cudurrada faafa. talabaad qorsheedu wuxuu yahay in kor loo qaado bilicda caasimadda. ololahan waa mid joogto sii socon doona guud ahaan degmooyinka caasimaddana wuu ka hirgelayaa. shirkadaha qashinka ee runtii qaabilsan degmo kastana maayirku siduu wareegtada ku soo saaray goob kasta oo la nadiifiyo shirkadda lagala xisaabtamaya. sidoo kale waxa uu halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo ka hadlay qashin ururintan iyo ujeedada ay ka leedahay dowladda hoose caasimadda Hargeysa. sida wadaarka saan waxa socota ololaha xashiishka kullu ilaahay noo shubay ku guunoonaya si ay dowladda hoose iyo mas'uuliyiinteeda iyo shaqaaladeeda dhammaan ay uga hortagaan wixii ka iman lahaa fiiyo xanuuno Allah inoo ma keena ay ku howl jiraan oo idinka arkay in cagafyadu shaqeynayaan saasaan ololahan u socon doonaa eeriyada qashinka la dhigayo waayo xanuunay keenaan cudurray keenaan marka waxaan leeyahay gacmo wada jir bay wax ku qabtaan dawladda hoose iyo shacbi weynaha reer Hargeysa waxaan leeyahay waxa wada qabtaan waxa loo shaqeynayaa ee raggaas ilaa saaka ay xashiishka ugu jireen ee meesha looga shaqeynayaa waa iyaga iyo caafimaadkooda inay dadku la shaqeeyaan oo si wanaagsan loo shaqeeyaan weeye waxa kale oo aan ku daraynaa dadkii marna waxay leeyihiin deegaaniyadiiba xashiish ka buuxsamay marka laga gurana wali way ku soo gurayaan. duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko ayaa ugu baaqay dhammaan bulshada ku nool caasimadda Hargeysa inay iska nadiifiyaan qashinka isla markaasina ay dhigaan meelaha ku munaasibka ah. waxa weeye xilli roobaadkii iyadoo aanu bilownay ololaha nadaafadeed degmada Maxamuud Heebe iyo Maxamed Moogaan maanta ka bilownay qofka bini'aadamka waxaynu arki jirnay bogigii hore ee wixii ka horeeyay in dumarku markay aqalkooga soo fiiqaan iyagoo qolqolka fiiqay subaxdii hadda wax dhacay ma garanayo hooyo kasta iyo inan kasta waxaan leeyahay aynu ka shaqaynataa nadaafadda iskuulka markaanu dhiganaynay maalin kasta oo khamiisa waxaanu samayn jirnay inaanu nadiifino iskuulkayaga iyo hareerihiisa iyo deerkiisa. shirkadaha qashinkana waxaan farayaa maalin kasta halkaa la nadiifiyo goobtaa la nadiifiyo iyagaa ka mas-uul ah inay qof gaadha dhigaan. aqaladana waxaan leeyahay shirkadaha qashinka u dhiiba muxuu ahaa qashinka oo biyomareennada iyo aqaladiina hortiina ha dhigina waa inagu sumcad xumo waa inagu dadnimo xumo. in nadaafaddu waa qayb ka mid ah iimaanka qof kasta waxaa looga baahan yahay inuu aqalkiisa nadiifiyo inuu jidhkiisa nadiifiyo inuu hortiisa nadiifiyo. aqalkaaga markaad nadiifisana aqalka la hortiisa iyo laagta ha ku tuurimaan leeyahay. ugu dambeyntiina duqa caasimadda Hargeysa waxa ugu baaqay dadka degan dhaamka qurac dheer inay isaga guuraan sida ugu dhaqsiyaha badan. dhaamka waxaan u jeedaa qurac dheer oo ah dhaamamkii ay Hargeysa lahayd waxaan leeyahay cid kastoo degani ha ka guurto waayo dhaamka looma ogola inay cidna degto dhaamka ha la baneeyo. Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur iyo Cawil Cabdi Kaahin warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.